waxaana ugu tilmaamaya boqor baa jiray boqoradii hore kamid ah boqorkaasi wuxuu lahaa sixiroolihiisii baa gaboobay dabeetana wuxuu yidhi waan gaboobo waxa laga yaabaa inaad jashaydii dhowdahay waxaad ii keentaan wiil yar oo fahima yacni hore wuxu fahmaya oo fatin ah intelligent ah oo laqin ah yacni daakiradiisu fiicanta wixii loo laqimo qabanaya saddex eray baa meeshan ku jira boqor saaxir iyo wiil waxa la tilmaamaya xadiidkani markaa boqortooyadaasi inay lahayd niman faaliyaal oo wuxuu sheega faaliyahii waxa kaloo xadiidkani tilmaamaya dadka ahlu baatilka ah si iyana ugu xidhxidhan yihiin baatilku inuu waaro oo sii socdo kana waa sixiroole baatil wada da'diisina way gaadho uu dhimanaya laakiin wuxuu rabaa sixirkan iyo farsamadan inay sii socoto saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay lay doono wiil yaroo caqli badan oo fahmo badan oo wax qabasho badan oo waxa loo diro aanay laabaynin halay raadiya buu leeyahay wuxuu rabaa in mabaadi'diisu faafto ninkan sixiroole wuxuu leeyahay markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay wax qabadiisuna daakiradiisuna wixii loo laqibana xijinaya ii doona waxa muuqata in wiilkii la raadiyo la soo helay dabeetana sixiroole baa loo geeyay inuu sixirka baro wiilkii dariskiisii sidii u soo qaadanaya sixiroole ugu tagayay ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmaca ku jira mank wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqdo iska cibaadaysta nin wadaadoo sawmaca ku jira ninkiiba la fadhiistay ninkiiba wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warrama ninkii dhallinyarada tawxiidkani uu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka warramayo xaggana dee daris iyo iskuul buu ku jiraa looga baahan yahay inuu si fiican u barto wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaadee uu ku sii socdo sixiroolaha wuxuu la sii yara fadhiistaa wadaadka xoogaa buu ka dhigtaa dabeetana wuu dhaafaayo wuxuu tagaa sixiroolisiyo uu ka soo dhigtaa markuu sixiroolaha ka soo noqdo ee uu guriga ku sii socdana waa la sii fadhiistaa wadaadka waxoogaa kaluu ka sii akhristaa dabeetana gurigoodii buu tagaa sixiroolihii baa wuxuu dareemay wiilku inay yar habhabsaamayo wakhtigii dabeetana waa maagay oo inankii waa la dilay reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo wadaadkiiba ku yidhi niyo waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhib baa ka jirto waa lay tumayaa wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan ha u sharxaane markaad sixiroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaamay reerkaa yara habsaamiyey markaaad guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa dariskii baa nala yara dheeraado sixiroolihii ayaan maanta ku habsaamay wiilkii farsamadiisii buu samaystay dabeetana arrinkiisii buu iska watay wiilku durustiisii buu iska qaataa xagganna xaq baa loo dhigaa xaggan kalena baatilkaa loo dhigaa akhiiran wiilkiioo wixii uu baranaya ayaa magaaladii bahal baa ku soo baxay xadiiska qaarkood libaax bay ku sheegayaan dabeetana dadka cabsi geliyey wiilkii baa wuxuu yidhi haddaan kala ogaanayaa labadan madaraso tawarkeedu sax yahay dabeetana intuu dhagax qaatay buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ku weydiisanayaa haddii wadaadkaasi waxa uu dhigayaa ay ka khayr badan yihiin oo agtaada lagaga jecel yahay ninkaa kale sixirooli wuxuu sheegayo ilaa uu dhagaxayga yar ku dil daabadaas buu yidhi ilaahay buu u baryey dabeetana bahalkii buu dhagaxii ku dhuftay ilaahay waa ku dilay waa dhintay wadaadkii buu yimi oo arrinkii buu sheegay inta magaaladii waxa bajiyey bahal dabeetana saasaan yeelo ilaahay baan bariyo dhagaxaasaan ku dhufto waa dhintay wadaadkii inankii wuu tashjiicay wuxuu yidhi waryaa maanta adaa iga fadli badan waxaanan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa inuu ku soo gaadhi doono ibtilaagaasi maalintu kuu yimaado niyow hay sheegin waxay idhahdaan wadaadkani laba qadiyadood buu inanka u sheegay markan mid wuu tashjiiciyey qofka biniaadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican qofka la qiro inuu waxa ka sameeyey saa Soomaaliya tiraahdo laa shukra cala alwaajib sax maaha idan wadaadkani mar inankii wuu dhiirigeliyey mar kale bay idhahdaan tawaaduc buu muujiyey oo ah qof isla weyni ka muuqatay waxaan aanunba wax garanaya intiina kale waxba ogtiin yaana idinka weyno intaa ku soo dhex jiray ma taagna bay leeyihiin tawaaduc buu muujiyey waa inaan yar ninkuu leeyahay maanta adayga mar saddexaad bay idhahdeen wuxuu muujiyey dadka asxaabul xaqa ahi in dunida tan imtixaan ay ku maraan wiilkii ilaahay buu si dhaba ugu xidhma tawxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay kadib wuxuu noqday nin dadka ilaahay u barya oo ilaahay ducadiisa aqbalo qaar baa u yimaada indhala ilaahay buu u baryaa ilaahay baa indhaa u bixiya qaar baa u yimaada xanuuno kala qaba ilaahay buu u baryaa ilaahay baa caafimaadiya magaaladii waa isu tilmaamtay wiilkaa yidhi hadduu kuu duceeyo ilaahay ducadiisa waa ku aqbalaya iyadoo arrinku halkaa marayo ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa dadkii ku wareegsanaaye la joogay mid ka mid a ayaa indhabeelay wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhuhu ay baxayaan dabeetana xoolo badan buu soo qaaday wiilkii buu yimi wuxuu yidhi waxaasoo xoolaa baan kuu sidaa haddaad labada indhood ii bixiso way ii fiicnaada wiilkii wuxuu ku yidhi dhegayso anigu indhaha ma bixiya buu yidhi dadku hadday ilaahay rumeeyaan baan ilaahay u barya adigu ilaahay rume
ilaahay inuu rabbiga iyo caqiid ninkani waa wiilkan ha yaraado waa daaciya diin dadka u sheegaya ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi markaad qof dhab oo ahlu tawxiid noqoto aniguna ilaahay baan kuu barya in ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo ninkii sidii buu yeelay ilaahay buu rumeeyo waa qumanaad wiilkiina ilaahay buu u baryey dabeetana labadii indhoodda ilaahay baa dib ugu soo celiyey wuxuu ku noqday gurigii boqortooyada dib markuu ugu noqday wuxuu u yimi boqorkii baa yidhi waar indhaha ayaa kuu bixiyey boqorkani wuxuu sugayaa isagaa dadka rabbi u sheegan jiray markaasuu yidhi rabbigay baa ii bixiyey awalaka rabbun hayri buu yidhi oo maydaan aniga ahayn baa ku rabbiya cid kalabaad rumaysan tahay rabbi wa rabbuka allah buu yidhi aniga rabbiga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya ooy dowladdii mashkilad cusub baa ku soo baxday wuxuu yidhi ninkan ha la ciqaabo waa la toorjargareeyey dabeetana wiilkii buu sheegay wiilkii baa loo yeedhay wiilkii wuxuu ku yidhi ma wixii aan ku baray ma waxay gaadhay maanta inaad dadka indhaha ugu bixiso baalkii sixirka aan ku baray waran sixirna indha kuma bixin buu yidhi dadkan ilaahay baan u baryey rabbigood baan u baryey awalaka rabbun hayri oo adiguna ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi wiilkaaga kan wuxuu yidhi ilaahay baa noo rabbiya isna ha la toorjargareeya baa la yidhi oo wadaadkii buu sheegay waxaa la yidhi sartu meesha ka qurantay waa ninkan waddanka ninka fidmeeyey ee balada dhigay oo wadaadkan sawmacadash ku jira wadaadkan waxaa la weydiiyey ma ka noqonaysaa waxaanaad rumaysantay ise waa lagu dilaa wadaadku wuxuu yidhi ka noqon maayo hala dili baa la yidhi god baa loo qoday miinshaar hagso ayaa halka laga saaray dabeetana labaa loo kala jeexay waa laga takhallusay ninkii baa la keenay isna odayga indhaa loo fiiqay waxaa la yidhi haye ka noqonaysa adigu may buu yidhi caqiidadu hadday degto arag ninkan shalayta gaalka ahaa ee halkan joogay ee maanta iimaan helay wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin dabeetana may buu yidhi isna waxaa la yidhi hal la miishaareey isna halkaa laga miishaareeyey labaa loo kala jaray wiilkii bay soo gaadhay wiilka dee sixirkiina isaga haya boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay mushkiladan kalena isagaa geystay dabeetana wuxuu inta niman ku daraybu wuxuu yidhi qaada waxaa geysaan buurta gebigeeda saara biqi doonaa markuu arko godkee waxaad tidhahdaan ama halkaasaa lagaa tuurayaa ama ka noqo waxa kanaad wado way kaxeeyeen halkii bay geeyeen markii dacalkii in la saaray ayuu ilaahay baryey kan ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay u sharkooda adigu igaga fillow buu yidhi buurtii baa gilgilantay nimankii baa ilaahay ka daadiyay askarta ahaa isagii baa badbaaday soo noqday iskamuu tegin wiilkan iyo mays odhan gaalkii ilaahay baa kaa badbaadiya baxso ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshada tan inuu bedelo boqorkiibuu ku soo noqday way kan buu yidhi boqorkii wuxuu yidhi meye ciidankaa kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi ciidankan u diyaariyo wuxuu yidhi doontaa qaata wiilkanna saara badweynta geeya waxaad tidhahdaa ma ka noqonaysaa hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi waa la kaxeeyey baddii baa la geeyey ka noqonaysaa baa la yidhi ilaahay oo adigu sharkooda igaga fillow buu kuwiina ku ducaystay doontii baa qallibantay nimankii waa dhinteen isagiina ilaahay waa soo badbaadiyey waa soo noqday boqorkii buu u yimaadaa waan meeye buu yidhi raggaan kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi kuwaana boqoroo ma rabtaa buu yidhi inaad idisho haa buu yidhi sidaad ii dili kari lahayd baan kuu sheegayaa buu yidhi dadkoo dhan isugu yeedh magaalada degan dabeetana meel markaad isugu weedho aniga tiirka igu xidh kadib qaanso qaado jucbadayda leebabka ku jira arooskii uu halka ku sitay xabad kala soo bax dantaalkaa yar ama leebkaa kala soo bax dabeetana markaad qaansada saarta leebka waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam magaca allaan cuskaday ghulaamka rabbigiiya intaa dhe buu yidhi markaasuu baad idili kartaa si kaleod idili kartaa ma jirto dadka muxuu ku leynayey dadka wuxuu ku leynayeen waxaan wadadii ku dhinteen ilaahay baa noo rabbiya buu dadka ku laayay iminkana wuxuu rabaa inuu inankan dilo laakiin dantii waxay ka gashay inuu yidhaahdo maxay bismi illaahi rabbi alghulaam dadkii oo dhan buu isugu yeedhay meeshii baa wiilkii lagu xidhay sidii uu sheegay buu qaansadii u qaatay dabeetana hashii waa ku riday wuxuu ugu ducaystay magaca allaan u cuskaday oo wiilkan yar rabbigiiya leebkiibuu ku garay halkaasuu kaga dhacay dhafoorka wiilkii yaraa halkiibuu wiilku gacanta saaray waa dhintay
magaalada dadkii joogay waxay yidhahdeen wiilkaa mar haddii lama dili kari waa in rabbigii loo cuskado mooyaane aamanaa birabbi lghulaam bay yidhahdeen marka annaguna wiilkani rabbiguu rumaysanaa ayaanu rumaynay bay yidhaahdeen boqorkii baa loo yima waxa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay soo maaha inuu diini faafto dadka diinta rumeeyo tii baa dhacday baa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay wuxuu yidhi waxay yeeshaa magaalada sekad walba godad ka qoda dabeetana dab ku shida xaabada dugdhiga markay holaacdo guryaha dadka ka soo saaro waxaad tidhaahdaan ma ka noqonaysaan mise waa laydin gubaa wixii ka noqda sii daaya wixii kalena guba dadkii markii meeshii la tubay yaa la yidhaha ma ka noqonaysaa may bay yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay waa lagu ridaa akhiiran waxaa soo gaadhay qof dumar ah oo ilmo yar naaska jaqsiisanaysa markii ay meeshii timi bay waxoogaa dib isu yara geejisa ilaahay wuxuu ka hadiyey ilmaheedii yaraa waa 3 qulaame uu nebigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nebi ciise ka mid ah wiilka yar baa ka mid ah jurayj wiilkii looga hadlaya ka mid ah wuxuu ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadiyey dabeetana wuxuu ku yidhi maxay yaa ummaah isbiri fa innaki cala alxaq hooyoy sabir xaq baad ku sugantay buu leeyahay kii naaska nuugay hooyoy sabir xaq baad ku sugan tahay kadib ayaa islaantiina la gubay qisadu wax ka dambeeya laynoma sheegin waa intaa